ku dhawaad 3,000 oo ruux oo isugu jira ganacsato xamaali kalluumaysato iyo ciidamo ayaa ka faa'iideystay oo shaqo abuur ka helay badeecada maanta ka degaysa dekedda macbalka ee magaalo xeebeedka Hobyo taasoo ay ka degsanayaan ganacsato ku abtirsada deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxaaq gudoomiyaha gobolka Mudug iyo sidoo kale gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Hobyo Maxamed Cawaale ayaa ku amaanay ganacsatada ku dhiiratay in dekedda macbalka ay hantidooda kala soo degaan iyagoo ugu baaqay madaxda dowlad goboleedka Galmudug iyo guud ahaan shacabka Galmudug in dekedda magaalo xeebeedka Hobyo maalgashi lagu sameeyo si qayb uga noqoto kaabayaasha dhaqaale ee dalka qaybtii Hobyaad oo shaqo ka socoto sida la socotaan adduunka coronavirus ever ka dhigay marka dadku waxay gelin ayaan u sameeynay shaqadan insha Allah waxaan rabnaa inaan soo afjarno hadduu Ilaahay yiraahdo control ahaan ku sameeynay oo maaragtay badii waa kornay waana soo baarnay inkastoo aan haysan qalabkii loogu talagalay oo maaragtay wax si fiican u baar lahaa laakiin dadka gacmaha golofyo gashtaan afka xirtaan nadaafadda ilaaliyaan waa ku wacyigelinay haddana insha Allah taala maadaama arboorku xiray degadan waxaan rabnaa in suun ayadana la xiro maadaama cudurku aad u batay sidaas awgeed waxaan rabnaa la socono aan badan ka hadlo xeebta waxaan rabnaa marka waa xeebta Galmudug baa Ilaahay ku manaystay Soomaaliya marka Ilaahay ku manaystay dan kadib Galmudug baa xeebta Ilaahay ku manaystay madaxweynaha Galmudug waxaan rabnaa xeebtaas ayagoon shactar lahayn oo deked ahayn ee deked macmil ah baa doonaysa uga degayaan doon baa ka degaysa wadada oo Bombaaso ka timid oo xamar lagu soo jeekimay oo cudurka laga soo baaray dees xamar soo marlaan ma aan ogolaaneen laakiin waxay soo martay Muqdisho oo lagu soo jeekimay madaxweynaha dalka uga faa'iideeyay asaga mas'uulka saraasan tahay inuu uga faa'iideeyo oo maamulka iyo dhammaan ay shaqada ka qabtaan waxaan rabnaa madaxweynuhu inuu dalka uga faa'iideeyo shacabkuna inay madaxweynuhu ku dhiirigeliyaan in laga qayb qaato qof kasta oo reer Galmudug ah dekeda ayaa laga sugi qaar ka tirsan gaadiidleyda iyo sidoo kale muruqmaalka maanta ka xamaalanaya badeecadahan ka degaya dekedda magaalo xeebeedka Hobyo ayaa tilmaamay in mudan tahay in looga mahad celiyo ganacsadaha ku dhiiraday in badeecadiisa halkan uu ka soo dejiyo waa shaqaynayna maanta xamaaliga shaqadaanba maanta noo furantay dekedii way noo furantay waan shaqaynaynaa aad bayna shaqadu nagu socotaa waxaan rabnaa dadka ganacsatada Soomaalida inay shaqada soo badiyaan oo doonayaan noo soo raraan maadaama maanta shaqo fiican helnay maalmaadkan waa soo saarayna maanta waxaan maanta noo bilaawday shaqo aan sugaynay maalmo badan badii baa noo furantay insha Allah doomiyay hadda noo soo bilaawdeen waxaan kaloo u mahad celinaynaa shaqadan raggii ka soo shaqeeyay oo ugu horeeyo ganacsadeena weyn Cabdi Jaamac Dharas waxaan leenahay Ilaahay maanta kaaga siiyo shaqaduna way socotaa dhalinyaro ahaanna waxa waaye faa'iido badan baa ka helnay maanta waa shaqaynaynaa 70% waa dhalinyaro waxa shaqaynaa maanta mid ka hela xamaali iyo mid ka hela ii sheeg inuu doontiisa uu ku soo xamaalo waxaan leenahay marka shaqadan waxay u baahan tahay dad Cabdi Jaamac Dharas oo badan bay u baahan tahay meeshaan Ilaahay Baasha Cali Xaashi raadiyaha TV-ga qaranka Hobyo